dabaaldegayno guul weyn oo gobolka Banaadir u soo hooyatay weeyaan waxaynu bil iyo badh ka hor u dabaaldegnay golaha shacabka Soomaaliyeed codsigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo labada aqal ee baarlamaanka uu soo gudbiyay ee ahaa gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay matalaad siyaasadeed matalaadii 13 xildhibaan ee aqalka sare ee golaha baarlamaanka oo ay golaha shacabku meel mariyeen una wada dabaaldegnay dhamaystirkiisa waa ay hirgalaysaa waanu gudan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo madaxweynuhuna waa uu meel marin doonaa isagoo hay'adaha sharciga iyo meelaha ay khusaysiiyeen dastuurka iyo dhinacyada ay tahay inaynu la kaashano meeqaamka aynu mar labaad ka wada shaqayn doono marka saaxiibkay walaalkay mahad salaad aan nahay dawladda ama xukuumadda nabad iyo nolol matalaadii baan u jeedaa aqalka sare meeqaamkiina waa inaynu ka wada shaqaynaa inta muddaxileedka nooga hadhay barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen soo lama oran jirin marka aynu ka shaqayno inta muddaxileedka xukuumaddan ama dawladda nabad iyo nolol ka hadhay inaynu hirgelino meeqaamka magaalada caasimadda ama magaalada Muqdisho ay leedahay waa wax lagu tiirsado inaynu maanta marayno xafladda labaad oo ah wareejintii manhajka dhinacyada kale ee adeega ee caafimaadka iyo dhinacyada kale dawladdu ay tahay dhaxay inay ku soo wareejiso gobolka Banaadir waa kala shaqaynaynaa insha Allah marba marka ka dambeysana hadba wixii suurtagal ah wada qaban karno waa ka shaqaynaynaa in gudiyo farsamo loo magacaabo meel markay soo gaaraan ay wareejiyaan